kulankan habeenkii xalay iskugu yimaadeen beelaha wadadega goqooyiga iyo galbeedka gobolka Maroodijeex oo dhaqaale lagu ururinayay dadka abaaruhu ku dhufteen ee deegaamadaasi ayaa waxa munaasabadaasi ka soo qayb galay qaar ka mid ah odayaashii waxgaradka haweenka iyo dhalinyarada jaaliyada Hoodaale ee dalka Germany ayagoo ugu hore ka hadlay kulankaasi mas'uuliyiinta ka soo qayb galay munaasabadaasi ayaa si qoto dheer uga warramay ahmiyadda kulankani iyagoo hoosta ka xariiqeen waqtigan loo baahan yahay sidii gacan looga geysan lahaa dadka ay abaaruhu ku dhufteen ayaa waxay yiraahdeen billahi kariim meesha marka koowaad waxaan isku xidhkahay mar labaad waxa jirta mid kale oo ah in dadkeennii waddankeennii ku noolaan dadkii ehelkeenna ahaa ayaanu ka dhalanay ay abaar ba'ani saamaysay dadkii alxamdulilaahi rabbil caalamiin ilaahay baa maanta roob siiyey laakiin roobkaa ay siiyey ilaahay haddana dadkii xoolihii waa ka baxeen inaynu caawinno walaaladeen oo jeebka gacanta gelinno oo aynu maanta sadaqaadka bixinno waa mid nagu waajib ah anigoo aasho xuseen oo ku magacay caashirooda aad iyo aad ayaan caawa faraxsanahay waayo weligay alla intaan jarmalka joogay maan arkin wax tolkaya oo maanta sidaa iskugu soo urura taasi oo maanta ii sharaf weyna oon aad ugu faraxsanahay oon ilaahayna ka rajaynayo inay markasta dhacdo oo wax wada qabsanno hadday aas noqoto hadday qaaraan noqoto hadday jaaliyad noqoto yaa berigii hore jarmalka nina dhibaatooyin badan baa jirtay laakiin maanta jarmalku sidii hore u dhaamaa wax waa la qabsan karaa wuu furfurmay surici maaha lacagta hadda halkan lagu ururiyey ee qaaraankii waa 2,000 euro caashadoodina waxay iyadu gaar u haysay waxay ahayd 20,000 euro waa 22,000 euro lacag dhan weeye runaankii waxaan aad halkan ugu ducaynayaa dhammaan intii la baxday sadaqada ilaahayna halkay ka soo saareen waxaan uga rajaynayaa inuu wax ka qayb qaba ama uga qayb badan ugu bedelo geesta kale waxaa shirkaasi lagu doortay guddiga horumarinta ee Hoodaale ee dalka Germany ee ka qayb qaadan doona dhinacyada adeega kala duwan ee la gaarsiin doono beelaha wadadega waqooyiga iyo galbeedka gobolka Maroodijeex Cabdirashiid Cayntee Cable TV dalka Jarmalka.